وإيران استرنايو إنه اسكتوبا دولتيش فربتنا تعبوا الشفايف مدن مدحوينه waxaa saanta diyaar waa ciidamada saldhigyada gobolka Laascaanood iyo ciidanka taraafikada iyo ciidanka bilmadka dhawaan tababarka lagu xiro magaalada Laascaanood baasana sharafta diyaar waa mudane madaxweyne ku soo dhawow ciidanka booliiska وإيران استرنايو إنه اسكتوبا دولتيش فربتنا تعبوا الشفايف وإيران استرنايو روحي نكوتينو وترضى أبتدنو تعبوا الشفايف وإيران استرنايو إنه اسكتوبا وينو mahadnaqayna mahad maanta u sugnaatay mudane hogaamiye ku soo dhawow saldhigii dhexe ciidanka booliska maamulka SSC Khaatumo oo ay ku diyaarsan yihiin ciidankii booliska ee maamulka SSC Khaatumo oo ah ciidankii ugu horeeyay ee bilaysa ee maamulkeena u yeesho iyadoo xaalad adag lagu jiray waxaa halkan ku diyaara ciidankii booliska maamulka SSC Khaatumo gaar ahaan ciidankii caasimadda oo ka kooban qaybihii kala duwan ee bilaysku lahaa hadday tahay taliskii qaybta ciidankii saldhigyada ciidankii laanta taraafikada ciidankii laanta baadhista dambiyada iyo dhammaan laamihii iyo waxyihii uu ciidan boolis Soomaaliyeed u lahaa ka kooban mudane hogaamiye ciidankan maanta horteena taagan waa ciidankii soo shaqaynayay 8 bilood ee magaaladeena Laascaanood iyo deegaankeena dagaalka adag uu ku socday ee cadowga manaxayaasha ay duqeynayeen saldhigan dhexe inuu taaganahay wuxuu ka mid ahaa meelaha ay ku soo la dhaceen madaafiicda iyadoo intaas oo dhibaato ay jirto bay ciidankeena shaqaynayeen waxaan ku ammaanayaa inay gacanna ku difaacayeen deegaanka oo jiida ku galayeen gacanna amni gudaha ay ku sugayeen tiraba 7 askari baa ku dhaawacmay difaaca oo qaybinay hadeer jiifto qaybinay hadeer halkan taagan tahay aad iyo aad baan ugu ammaanayaa mudane hogaamiye waxa inta dheer ciidankan duruuf adag buu ku soo shaqeeyay waqti adagna waa soo shaqeeyay ciidankan wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood ciidankii saldhigyada joogay markii systemkii Soomaaliland meesha joogay iyo dadkii deegaanku ay isqabteen dadkoodii raacay ee ku haray saldhigyadii intaana dadkoodii u shaqaynayay ciidan cusub oo ah ciidankii la qoray oo ah ciidanka Maryaha Madmadow sita iyo ciidan dambe oo markii tiradii saldhigyadu ay yaraatay aanu saldhigyada wax ku ururinay aan ku biirinay ciidankii hore saddexda ciidan bay ka kooban yihiin waxaa tababar galay kooban walibana aan ku filnayn ciidankii cusbaa loo soo xiri jiray tababarka oo uu soo xiri jiray gudoomiye ku-xigeenka labaad aqalka sare iyo simadu waa ciidanka Dareeska Madmadow oo ah ciidan aan u isticmaalno birmad ahaan oo waxa ka tambata saldhigyada xoojiya meelaha xoog u baahan oo ah ciidanka kaliya hadir sida aadka uga dhex muuqda magaalada ama uga shaqeeya oo meel kasto adag gala waxaan ka tagayn ciidamada saldhigyada hal eedaysana oo naga baxsaday ma jiro 8 bilood ee xaaladda adag lagu jiray oo ciidanka booliska ka baxsaday aad iyo aad baan ugu ammaanayaa waxay u soo shaqeeyeen dadkoodii duruuf adag bay ugu soo shaqeeyeen iyagoo aan salary iyo mushahar qaadanayn iyagoo marmarka qaarkood aan garaam ku filnayn
fahimta waxay u shaqaynayeen dadkooda waxaan oran karaa waa dad qiyam leh oo wadaniyad ku dheehan tahay oo u baahan in lagu tabco waxaad ka warhaysaa mudane hogaamiye dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay inay soo gaadhisay gunno yar oo aan ku filnayn oo la oran karo xitaa salary ma aha gunno xitaa ku filan ma aha waxaan saaka ku wareejinayaa ciidankaas oo aad aragto quruxdiisa dhismihiisa iyo siday u diyaarsan yihiin in ay noqdaan ciidan official ah oo maamulka SSC Khaatumo oo saaka adigu aad hogaaminayso u diiwaan gashan wixii shaqo ay qabteen aad de warin dhaadhaame adna waad nala joogtay mar hore iyo mar dambaba waxaan u baahanahay mudane hogaamiye baahida ciidanka in la dhammaystiro hadday tahay tababar ciidankan wuxuu u baahan yahay tababar in la baro shuruucda ciidanka biliiska uu u baahan yahay waxay u baahan yihiin dirays wax gaadiida ciidanku ma leh iyadana hogaamiye waxaan rabnaa in la helo baahida gaadiidka in la helo baahida xafiisyada saldhigyada xafiiska laanta CID-da xafiiska taraafiga ka qaybta iyo dhammaan xafiisyada kala duwan wadana hogaamiye waxa sharaf ku ah maamulka SSC Khaatumo u ah dadka deegaanka u ah inay haystaan booliska inta leeg ee u shaqaynaya amnigooda sugaya ee ajnabi iyo muwaadin ba cidii sharci ku joogta deegaankan amnigooda sugaya oo aan hubo inay ku filan yihiin ciidankan tiradiisu way kooban tahay mana aha ciidan ku filan caasimadda waxaan rabnaa mudane hogaamiye in ciidan ku filan caasimadda loo dhiso kana la tayeeyo marka mudane hogaamiye aniga oo kaaga mahad celinaya waqtiga habboon ee aadna siisay ee aad ciidankaaga siisay oo aan u diyaarnahay kelmadda aad ciidanka odhanaysid waxaan kugu soo dhaweynayaa ciidanka booliska maamulka SSC Khaatumo oo u diyaaray waajibaadka shaqo iyo awaamiirta aad siin doonto waxaan kaloo isna halkan inagula sugan oo kelmadiisa siin doonaa taliyaha howlgelinta ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Siyaad oo isaguna sheegay waa sarreey guud Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan taliyaha hoggaanka howlgelinta booliska federaalka Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta hor taagnaado intaro ciidano gobolka Sool ah oo booliska warka xogtiisa haddana waxaan maartay inuu sugayo madaxweynaha laftigiis waxaan kaliyeedu kula dardaarmaya waxa weeye booliisku bulshadu ka yimaadaa booliisku waa saaxiibka bulshada idinka oo u shaqeynaya oo adeegaya inaad u dhimirtaan dhowrtaan shaqada iyo waajibaadka aad leedihiin aad gudataan qodobada ugu muhiimsan waxa weeye ninka ciidanka booliiska anshax toosiyaha ah in isagu marka hore anshaxiisa wanaajiyo uu isagu u eegyahay nin ciidan oo dawlad matalaya nin maaragtay bacasita iyo balwadi ka muuqato inuusan noqon waxaa hadda ugu daran waxa weeye mukhaadaraadka in laga hortago si loo badbaadiyo bulshada iyo carruurta jiilalka soo kacaya waa idin salaamayaa waana idinku dhiirigelinayaa inaad tihiin ciidankii ugu horreeyey ee booliis ee maanta ka howlgala maamulka inaad waajibaadkiina ka soo baxaysaanna waan aaminsanahay warkan nuxurkiisa waxaan u deenayaa madaxweynaha Cabdulqaadir madaxweyne ku soo dhow akiisha saraakiil xigeenada mayorka magaalada Jeneraal Siyaad iyo martisharafta kale waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaka dareen gaar ah iyo ahmiyad gaar ah baa igaga dhalatay booqashadan aan ugu imi saldhigga dhexe ee biliiska Laascaanood waxaana sabab u ah
ciidankan quruxda badan ee ay ka muuqato hannaankii ciidannimo ciidamo kala duwan baan la kulmay oo booqday laakiin hannaanka ciidannimo idinka muuqataay runtii waa ka tilmaamaya meelahan tegi jiray waadna ku mahadsantihiin bilaysku sida la sheegay waa saaxiibka bulshada bilayska iyo shacabku waa mataano waa saaxiibbo bilaysku waxay u shaqeeyaan inay sugaan amniga shacabka ay la joogaan bilaysku amniga ma sugi karayaan keligood haddaan shacabku kala shaqaynayn haddaan bilayska iyo saraakiishu ayan la saaxiibin shacabkii shacabku lama shaqaynayaan bilayska si shaqadiinnu u hagaagto oo amniga aad gacan adag ugu qabataan oo aad ka hor tagtaan faldambiyeed kasta waxaad u baahan tihiin in shacabkan oo runtii haddeer u heelan inay la shaqeeyaan cid kasta oo dilays ciidan sidata shacabkaa waxaad u baahan tihiin inaad kasbataan oo la saaxiibtaan oo dhex gashaan oo aad u tustaan inaad iyaga ka tirsan tihiin haddii aydan intaa ku guulaysan muhiimaddii laydiin igmaday ee ahayd in la sugo amniga caasimaddan ma gudan karaysaan shacabka magaalada ku sugan maanta boqolkiiba 200 bay u helan yihiin inay la shaqeeyaan ha niyad jabinina ha dulmiyina kibir ha ku xidhina ha huruufina soo dhowaysta ganacsadaha dukaanka haysta amni buu u baahan yahay la saaxiiba u sheegay inaad isaga u shaqaynaysaan imaamka masaajidka jooga amni buu u baahan yahay la saaxiiba u sheegay inaad isaga u shaqaynaysaan macallinka iskuulka dhigaya sidoo si leeg gabdhaha meheradaha haystay hooyooyinku amni bay u baahan yihiin la saaxiiba u sheegay inaad iyaga u shaqaynaysaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee arday leh ee shacab leh ee ganacsato leh ee culimo leh ee waxgarad kale leh markaad la saaxiibtaan waxay idiin sahlanaanaysaa inaad shaqadiinni si hufan u qabsataan waa ku ammaanaya taliye gowrac iyo xubnaha ciidanka iyo saraakiisha kaleba dhowr fal dembiyood oo ka dhacay magaalada tan sidii ay uga daba tageen oo soo qabteen waa ku ammaanan yihiin riboodkaana waan hayaa in la sii laban laabaa la doonayaa in la kordhiyaa la doonayaa cadowgii magaaladan dul fadhiyey ee 8 bilood madaafiicda la dhacayay ilaahay waa inaga kiciyey ma hadda arhaba iska leh miyaynu iska farfadhiisannaa oo iska jiifjiifsannaa mise waa shaqaynaayoo magaalo sistamkii dowladnimo ka shaqaynayo oo nabadgelyo ah oo amniya oo cid kastaa isku soo hallan karta ka dhignaa inay magaaladu noqoto magaalo la isku soo hallayn karayo oo kii u dhashay iyo kii kale Soomaaliyeed iyo kii ajnabiga ahaaba ay ku tala galaan inay ku leedi karaan idinka sababi kara Ilaahay ka sokow diyaar baad u tihiin anana diyaar baan u nahay waxaanu ka shaqaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo in xuquuqdiina oo taama aad heshaan haddii Ilaahay ka dhigo maamul curdina baynu meeshan ku haynaa tallaabooyin isdaba jooga baanu qaadnay oo aanu doonayno in ciidamada ammaanka iyo guud ahaan ciidamada SSC ee qalabka sidaay ay xuquuq joogtaa helaan waana la helayaa haddii xuquuqdiinu idinka raagto
iyo haddii aad wax qoonsataan ma aha inay shaqadiinna saamayso shaqadiinna inay saamaysa maaha mar kasta iyo goob kasta waa in shaqadiinnu ay ahaataa waxa aad muhiimadda koowaad siinaysaan askariga ammaanka sugaya dadka waa in ugu qurux badnaadaa waa in ugu disibilin wacan yahay waa in ugu akhlaaq wacan yahay haddii askariga ammaanka sugaya disibilinkiisa iyo akhlaaqiisu ay liitaan dadku isku aamini maayaan inay la shaqeeyaan mise waa beentay markay idinka muuqato hannaan askarinimo hannaan ciidan amni oo ku dhisan kala dambayn iyo anshax iyo akhlaaq ciidan marka laydinka arko baa shacabku idinku soo dhiiranaya oo idinla shaqaynaya oo idin garab istaagaya anshaxa iyo disciplinku waxay noqon doonaan wax lagu abaal mariyo ciidamada anshax daraduna waxay noqon doontaa wax lagu ciqaabo ciidamada waxaynu la dagaalamaynaa maandooriye waa inaan laga helin ciidamada amniga sugaya qof maandooriyaha la saaxiiba kala iibsigii buu qarinayaa soo gelintii buu qarinayaa isagaaba quraaradii qaadanaya oo dhegta qabsanaya ninkaasi askar ma noqon karaya ammaan waa laga dhex saarayaa ciidanka qofka noocaas ku jiri kari maayo wax kasta oo aad u taqaanaan inaad soo qabataan oo dembi aad u taqaanaan idinku iska qabta ha isku eegina haddaad taliyihiinna ku aragtaan riboort golaya cid idinka sarrayso waxaa taliyi waxaa isku talabsada waa inaan ka gudubnaa askari ammaanka sugaya oo haddana suu doona yeelaya oona la xisaabtamayn waa in laga gudbaa dhacdooyin baa ka dhacay magaalada rag ku dhinteen oo bilayska rag ka mid ah ku baxay war waxa laydiin diray dadka aan laysaan maaha meeshana cadow ma joogo dad farsamadii ka xumaatay oo in la saxa u baahan ee aan u baahnayn in la dilo baa jooga waxa dil inooga baahan waa cadowga ayna dul fadhiya guumays soo eegaya ee oog inoo fadhiya ee halkaanu ka kicinnay ninkii xabaddaa ridiisdeeda ciil u qabow dariiskaan kaa bixinaynaa kii militariga lagu gelinaya guumays baa lagu geenaya difaacaad tegaysa haddii ilaha ka dhigo xabadda ka daaya shacabka runtii meel 8 bilood dagaal ka socday oo madaafiicda intaa lagala dhacay iyo waxa iminka aynu arkaynay aynu leenahay waxaasaa dhacay waa rakarooni weeyaan duruuf adag oo qallafsan oo qofku uusan sidii saaniga ahayd u shaqayn karin baad soo marteen magaalada iminka waa inoo ammaan lama duqaynayo lama soo weerarayo waa inaad markaa idinkuna beddeshaan habdhaqankii dadka idinka dhexeeyey oo aad saaxiibnimadii iyo wanaaggii bilayska lagu yaqaanay soo celisaan ninka bilayska ahay markay ilmaha yar arkaan waa inay adeerkayba halkaa maraya yidhahdaan gabadha waa inay tahdaa walaalkayba halkaa maraya hooyada waa inay tahdaa wiilkayba halkaa maraya laakiin haddii marka uniformkiina la arko dadku idinku sasaan oo idinka cararaan maxaad qaban karaysaan ma kala garan doontaan qofkaa cararaya ma dembiila mise oo qafsasay kala garan maysaan sidii xilligii hore ee aad ku shaqayseen dadku ahaan jiray askarta waa laga carari jiray soo maaha waa in loo soo cararaa beddela dadkana u sheega waa inaad gaadhisaan qofka idinka cararaa inuu yahay qof dembiila ah dadka waxay kalaan idin soo hiloobaan idin yimaadaan idin dugsadaan wararka iyo warbixinta idin siiyaan si shaqada inuu hagaagtaay waxaan ku darayaa hadalkayga waad ogeydeen taliyihiinu goobjoog buu ka ahaa master gowrac ciidan xasilinta la yidhahdaa magaalada lagu sii daayey ciidankaasi ciidanka
bilayska iyo qaybaha kala duwan ee ammaanka iskama soo horjeedaan ee way wada jiraan iskama soo horjeedaan waa wada jiraan jananku xalay wuxuu isu keenay taliye gowrac iyo taliye siciid oo xasilinta madax ka ah qaabkay u wada shaqayn lahaayeen u wada hawlgeli lahaayeen baa laga wada hadlo waa la sii wada doonaa saraakiisha kale ee halkan joogta iyo saraakiisha kale halkan joogta hawlgallada qaban doontana waa la iswaafajin doonaa haddii ilaahay ka dhigo saacad walba amniga magaalada cid saraakiil gaara ka mas'uula hadday noqoto bilayska iyo hadday noqoto xasilintaba waa inay wada shaqaynayaan waa inay kulmayaan waa inay warbixinta kala qaadan karayaan magaalada lagama ogola hub sharci darro ah gaadiid dagaal qori magaalada lala marayo xabadaha magaalada laga ridayo waxaasoo dhan waa mamnuuc weeyaan idinkaa u xogogaal ah arrimahaasi meelahay ka dhacaan iyo siday u dhacaan nimankan xasilintaa furintaada laga soo kaxiyey magaalada xogteeda idinka haya kula shaqeeya xogta aad haysaan si ay idinla gutaan waxaynu u baahannahay in faldembiyeed soo socday laga hortegi karayo iyo in faldembiyeed dhacay lasoo qaban karayo ciddii geystay haddaynu labadaa ku guulaysanno laascaanood waxay noqonaysaa meesha ugu ammaansan geyga Soomaaliyeed qorshayaal fara badan oo dadka magaalada lagu abaabulayo oo guryaha iyo xaafadaha iyo sekadaha ammaankooda ay ku sugi doonaan baan loo samayn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo waxaa inoo ballana shaqo hufan wada shaqayn shacab iyo ciidan maamul iyo askari sarkaal iyo shacab in la wada shaqeeyo inoo ballana guddiyaha magaalada laga qaban doonaa ganacsato leh culimo leh aqoon-yahan leh kuwaasoo ujeedku uu yahay inay idinka idinku caawiyaan si aad waajibkiin u gudan lahaydeen dagaalkii kadib laascaanood waxaa ku soo jeeda indhihii caalamka oo dhan laga soo bilaabo 1990kii ilaa iyo 2023 imkaan taagannahay laascaanood waxaa lagu leebelgareeyey oo lagu shaabadeeyey meel ammaana maaha iska daa caalamka kale innagaa qaadannay oo ay quluubteenni gashay oo aaminay meesheennu meel khayr dan inay tahay ragga halkaa taagan baa waxaa laga doonayaa inay historyga masaxaan oo waraaqihii waxaa lagu qoray ay googooyaan oo jeexaan oo jeexjeexaan oo ay kitfaan oo aad dib u qortaan laascaanood waa ammaan geyga Soomaalida iyadaa ugu aaminsan oo ugu nabadgelyo badan oo ugu xasiloon waa awoodaan waa samayn kartaan waa idinku garab istaagaynaa waa idinkula shaqaynaynaa waa idinku hogaaminaynaa waxaa inoo ballana laascaanoodoo nabada oo xasiloon oo qurux badan oo la isugu yimaado war sidaa ballantan ma ka dhigannaa ballantan sidaa maaha guulaysta jaalayaal waa mahadsantihiin